iyo hal kiilo oo sokor oo la soo qaaday ilmaha caawiya macaaw ku bariya galahayaan wax ay cunahayaan haystaan ma laho hoyna ma haystaan xoolana ma haystaan wax ay haystaan ma jirto qaraabadii soo qaaday meesha baa la soo dhigay wax heli kareen way siiyeen ilmahan waxay u baahan yihiin tacsiyo iyo wax kasta way u baahan yihiin in wax loo soo aruuriyo oo wax loo keeno oo aqal loo dhiso oo guryo loo dhiso oo wax loo hagaajiyo oo dhar la siiyo oo gogol la siiyo oo sariir la siiyo la rabixiyay rabaa laxruutan hadda taltiina qaraabatina carrada waxaan rabnaa in ilmihii la soo nooleeyo oo ilmihii la soo gaaro oo ilmihii la soo dhaqaaleeyo anaga intaasaan sheeganaynaa hoyna ma haystaan waxay haystaan mala xoolana ma haystaan geel lama qabaan ariga yaraan uu ka soo dhamaaday qayli inta orod bay ku imaadeen iyo islaam ku soo carareen waxaan rabnaa ilmaha in la soo nooleeyo la soo gaaro wax loo karin hayaan ma jirto wax ay haystaan horta ma jirto wax ilaahay abuurtay way haystaan ma saaka dab looma shidin waxay haystaan ma laho maanta gaajo ay ku wargaleen haday kiila sokor dayna meesha laga soo qaaday kiila bariiska بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا أضياش مدح جيسي كمدا وحان ما أنت عن ربا ضد كان كذا على أركيسان المها يريركا نكا أضيجا يجمع داس أيدلين وحان كسو كهر تجني دحل أيوة صاح يا ما يوم وأقول مني وساق عني مدح جيسي بان كني وركض مركان مقلني وح أي هيستان بجيران waxaan ku saacideynay intii aan marka ayada meesha ay guurin uma hayno dhaqaale tuulo joog baan nahay dhaqaale uma hayno wixii aan ku dhaanay oo habeenkii barigalka waan aruurinay wax dhowr cag ay ku bariyeen waxaan codsanayaa dadka muslimiinta ninka alla wax siiyay iyo dadka islaamka u diirnaxayo waan ka codsanaynaa dadka in la soo saacideeyo waxaan u yeernay ninkan wariyaha aan ugu yeernay inaan anagu codka anaga maal aan dheer aan gaarsiin karin waxaan ugu yeernay in ninkan asaga uu naga saacideeyo kamaraaga iyo ilaahay kuma codka maal la gaarsiinayo marka waxaan rabnaa ciidan ayada meesha man arkaysaan bay fadhidaa ee geedka hoostiisa ah guri uma hayno gurina ma haystaan waxay haysteen qalhariyo way la guureen gaadiidkiiba meesha ayada ay joogan iyo kulli waxay haysteen anfacsanayeen meesha ay kaga soo dhamaadeen way soo luweeyeen meeshan madaxgiisa marka waan ka hortagnay oo meeshan madaxgiisaan qayladooda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان ولا لها مسلم كمل بيجوجان وإذا السلام يا وصاحبكين ولالكين وريا عبد الله بالغري مركلة أدبيد السلام يا ولا لها مسلمين تا مال والبؤ الدنيا دعلة ذات كجن وشهين كوبا مال نتهاي يكوبا يحبين نتهاي ولا لها خير كجعل سجود يسجر هند يعني إذا وذا السلام يا ما أنت مركلة وساعد أباره لبي طبعا كي قلب نمو وحكوسو جنا هاي متكمدة تولوينكا deegaanka Dadaab waxaana la joogaa qoys kamid ah qoys Soomaaliyeed oo dhibaataysan arimihii barnaamijyada aad nooga barateen ee khayrka badnaa ayaan idin wadaa qoys Soomaaliyeed dhabarkayga dambe qoyska fadhiya waa qoys Soomaaliyeed oo halkaas ku sugan oo ku dhibaataysan macluul iyo darufooyin iyo baahiyo kala duwan ay ku haysato walaalahan aad u joodaan gaarkayga fadhiyo waa qoys danyar ah oo reer guura ah oo xoolihii wax xoolo ay ka naxeen ay ka leeftay abaarihii baana dalka ka jiray waayadii ugu dambeeyay walaalaha khayrka jecel marka waxaan doonaynaa carruurtan yaryarka ah iyo hooyadood iyo aabahood oo kan ah ma haystaan hooy ay ku hoydaan sida u joodaan waxa hooy u halka hadda aan fadhiyo aan ku suganahay geedkan hoostiisa ayaa hooy u ah waxa ayna gogol ka naxaan hasha ka tifada ee aniga hadda aan kula fadhiyo ma jirto hadda waa xilli galab ah oo waxa loo baahnaa in casho carruurta loo diyaariyo laakiin ma lahan oo uma suuragelin sida ay ii sheegeen saaka ma aysan qurcanin ma ayna saqadeenin haddana dab uma shidno carruurtan waa carruur yar yar ah oo isku maqada ah aabahood waa xoogaa dhanka maskaxda ayuu noqday oo xoolihii u haystay oo dhan ayaa ka dhamaadeen hooyadana waxay ku dhaanta ma laha hooy ma haystaan carruurtan dabeesha iyo dhaxanta iyo kanaacada meel ay ka hegalaan ma laha
wax dab loo saarana lama hayo walaalaha ay ku soo baqdeen magaalada deganna dad ayaga wax sidaas ku sii dhaama ma aha oo ayaga waa dad iska danyar ah oo reer guuraa oo tuulo ku nool marka walaalaha khayrka jecel ee muxsiniinta mar kale waxay idinka codsanayaa in qoyskan aad ila gurmataan oo sidii hore ee wanaagsaneed aad uga qayb qaadan jirteen barnaamijyadii aan idin soo bandhigi jiray ee khayrka badnaa aad uga soo qayb qaadataan oo qoyskan ugu horeyn bal aynu u raadino wax carruurta yararka afka loo saaro haddii ay hal lahaayeen caano iyo raashiin kadibna aan gudagalno bal inaan hoy u sameeyno si noloshan hadda meesha taalla ee murugada badan ee xanuunka badan aan uga badalno insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan rajaynayaa sidii aad noga barateen in sida maanta ay ku sugan yihiin iyagoo ka farxad badan oo muuqaal ka qurux badan oo ka duwan oo ka farxad badan insha Allah aan idin soo gudbiyo waad mahadsantiin